السلام عليكم كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Sooyaalka Media qodobadeena ugu weyn maanta waxay kala yihiin madaxweynihii hore Galmudug Xafo sharaxay sababta uu dib ugu laabtay galkacyo Muuse Biixi oo hanjabay odayaashii dalbanayay midnimada Soomaaliya fafaan dheeraad ayaa ku maqli doontaan qodobadeena kalena waxaa kamid ah madaxweynaha baarlamaanka daldan oo la karantiilay شكل حرير كورونا فيروس magacii waa maslax nasiib fadlan hadan u cusubtahay channelkan subscribe inoo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan aatana ku soo dhawaada warkii faahfaahsan madaxweynihii hore dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xalay dib ugu laabtay magaalada Dhuusamarada caasimadda Galmudug kadib markii habeen hore uu safar degdeg ugu tagay magaalada Galkacyo Xaaf oo sheegay inuu tanaasulay shacabka Galmudug ayaa maalmo ka hor waxa uu tagay magaalada Dhuusamarada isagoo kulan la qaatay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor war ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu sheegay in safarka degdeg ah uu tagay magaalada Galkacyo oo ahaa mid asagoo gaar ah hase yeeshee uu dib ugu soo laabtay magaalada Dhuusamarada maalmaha soo socda ayaa la filayaa xaflad kooban oo lagu qabto magaalada Dhuusamarada ee caasimadda Galmudug isla markaana uu xilka si rasmi ah ugu wareejiyay madaxweynaha loo doortay ee Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor ayaa ku guuleystay inuu la heshiiyo dhinacyada siyaasadda ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug waxaana magaalada Dhuusamarada ku sugan inta badan xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeday doorashadiisa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa si degdeg ah uga hadlay odayaal dhaqameed muddooyinkii dambe ka hadlayay arrimaha wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya isla markaasna dalbanayay inay ka qayb noqdaan wada hadalladaasi Muuse Biixi ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay shaqadooda ahayn arrimaha siyaasadda oo ay ka mid yihiin arrimaha ay ka hadleen ee wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Muuse Biixi ayaa ka dhawaajiyay in odayaasha dhaqanka looga baahan yahay inay gutaan kaalintooda dhaqanka isla markaasna ay ka sugayaan ka xukuumad ahaan dhaqankii wanaagsanaa ee looga bartay salaadiintii dhaqanka madaxweynaha ayaa si degdeg uga hanjabay salaadiintii ku ekaan waayay waajibaadkooda dhaqanka ee faraha la galan arrimaha siyaasadda iyagoo qaadi doona mas'uuliyadda wixii uga yimaado arrintaasi dhanka kale Muuse Biixi ayaa maanta ka hadlay qorshaha cusub ee la shaaciyay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku wajahayo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee muddada badan hakadka ku jiray Muuse Biixi ayaa maanta warbaahinta kala hadlay isagoo barbar joogan guddoomiyaasha labada gole iyo labada guddoomiye ee xisbiyada mucaaradka Soomaaliland wuxuuna sheegay in diyaar u yihiin dib loo furo wadahadalladaasi Abiy Ahmed ayaa doonayay inuu kulansiyo ra'iisul wasaare Khayr iyo Muuse Biixi maadaama reer Soomaaliland ay xasaasiyad ka qabaan madaxweyne Farmaajo Muuse Biixi ayaa carabka ku adkeeyay in xukuumaddiisa diyaar u tahay wadahadallada ee la gasho dowladda federaalka sidaas uu muuqatay inuu si dadban u aqbalay uuna diyaar yahay qorshaha Abiy Ahmed baarlamaanka dalqaarada Afrika ku yaala ee Botswana oo ka kooban 64 xubnood ayaa galay karantiil kadib markii dhakhtar baaritaan marsiiyay isaga laftiisa laga helay coronavirus baarlamaanka Botswana oo ku jiro madaxweynaha Mokwesi ayaa la karantiilay 14 maalmood oo laga baari doono cudurka loo yaqaan coronavirus kadib markii dhakhtarka caafimaadka baarayay isaga laga helay cudurka dhakhtarka ayaa hubiyay heerkulka qaar kamid ah xildhibaanada Arbacadii intii lagu guda jiray fadhiga gaarka ee baarlamaanka wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in dhammaan xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha la karantiilay lana hubin doono inay qaadeen cudurka COVID-19 gudahantaas ayaa kusoo gabagabeynayna wararkeena warkii intaan ku kulmi doono wanigoo maslax nasiib sidaas iyo ammaan Allah